وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو بروح واي السلام عليكم كل إنه فهمتري ها وحين مريني عتب بينك سوتشرنا إنه صباح إن logic and set theory لبقى قيود بينك كلا تبيني عتب كا logic and set theory logic أيه نحوي مدبرا سودني وحوي واحد بدنا كصوت عطاوني وأنا جيدين صوت دريمر كا أنا أصلا كي هيسين وحوي لبقى قيود بالlogic and set theory كبا دور عوانا كوم بحر سنا قار إن كدرنا يقار ماشي نوجي اللي لبضوا وأنا دي صوت دري I hope ينا كشقيسين هدي أيضا كشقينين ولي وحدين هرسينهن ونسليه جدا هدي لا كردوا وحوين معها عتب كينن أو ترينتين أمريكا لقى يقول نقنا يا عتب كينن تطباد إسلام كان نقنا يا عتب كينو جدا بيجي ترينومتري بينه وبحنا ترينومتري معها أمريكا كوادة إنه عرقنا وينجي هراء صارنا حوالي أنا فمون كي وكله ترينومتري وين كسارنا ترينومتري وقيحدو لي هي وقيحدا بدنا كل دوام بالله سميا إسلام كان أبلين بولي هي أبلين وحنا وجه هذا كلمة دني مالا أي كسوة شيء ده بيلاها كلمة دني ما كلا تشبين أيام الله أبلين أيام الله بتشير بالكلا تشبيه كله إنت عارف واركي المرك هراء إن اللي يراهدو صدق غيبات لو كلا تشبيه قيب تهراء تراي قيب تدحى أجانا يقيب توجد بيسو أمتري هذين نراهنا تراي ministry وينك هراء نقني إنت ها ويد واحد نقول عصب ما لما أنتو نحوي وا Greek words كلمة ده جان أنا وحوي وا أنجل كلمة ده مش مترنا سيدا عادية يدنا وا measure أما measurement مرة لبعض بقى كلمة ده trigonometry حوي لك الجبية أما لك الأبلابلية مرك كنا سيدا بالأوراني حلاك لغيبنا يا لبا كلمة لبا قيود بالله كل جبينيا يدو أنت هرا لا يسرعني تريجانو أنت ضمنا جار لا يسرعني متري إسلولي ومعنيه بحمارسنت ها ميشر من تريجانو أو على بدن كلمة دو الله يسكت دري معناه حمارسنت وحوي يسوي تري أنجل سوى محي تري أنجل سديدي ما ين لبضن أبلا ينادي أكل دواني سببتها حيت هاي waxaan naqaanaa kelmadda triangle ayaa marka hore ka kooban tri iyo angle laba qaybood oo xaweel labada qaybood kelmadda triangle baa ka kooban marka waxaan oran karnaa qaybtanaaba hawl yar waayo waxa loo kala jabiyay triangle iyo waxa weeye measurement labada qaybood ayaa loo kala jabiyay oo trigono iyo metri kelmaddu qeexis ahaan taa marka ablaawlaynta laga yimaado iyo kelmadaha Greek ah macnahooda trigonometry was the study of the relationship between the sides and angles of a triangle صدق حاجة البينو هيسنا صدق حاجة الكينا يرى إنه هيسنا طبعاً وحلي هي sides يا angles this is side and this is side and this is side كونه حيوان angle صدق angle يا صدق حوي side بقولي حرير باتشرا كده حيا صدق ذن side يا صدق ذن angle برشة حرير كلا برنا يلا يقنا trigonometry markiiba waxa isweydiinaysaa waxaan niri waa barashada la baranay xiriirka uu leeyahay xiriirka ka dhaxeeya xaglaha iyo dhinacyada uu saddex xagal leeyahay saddex xagal waa maxay markiiba ardaydu isweydiinayaan saddex xagalku isagu qeexido badan buu leeyahay geometry-go kale marka la joogo qeexido inuu sameyn jirnay form 1 iyo waxa way form 2 waxaan ka aragnayba
imikana waa isla qeexidihii uun kama foga tanna waxaan odhanaynaa un triangle-ku waa geometric shape waa shay geometry ama waa shaxan geometry kaasoo leh 3 dhinac iyo 3 xaglood sida triangle ka dareemayso 3 xaglood iyo 3 dhinac ayuu leeyahay taasina waa triangle-ka markaynu intaa ka nimaadno kaga nimaadno qeexista hore waxa weeye trigonometric iyo ablaablayntiisa iyo waxa loo yaqaan triangle waxaynu u gelaynaa waxa bal Pythagoras theorem-ki oo ah ciwaanka ugu soo horeeya kulli chapter kan waan idin soo diray isagoo waxa weeye chapter oo nowda laba part oo kala jabinay part 1 iyo part 2 part 1 waa iga haysaan isagiya assignment-kiisiiba marka waxay ka caawinaysaa taasi inaad waxaanaynu sheegayno akhrido meeshan wax badan baa ku yaala dhuran badan inaad dhuranka wax weeye akhrido sidoo kale assignment-ka aad ka shaqeyso oo ciwaan kasta aynu dhigno oo aad isku daydo inaad fahanto inaad assignment-kiisa ka shaqeyn karto ama inta ka qosaysa aad ka shaqeyn karto bal intaan Pythagoras theorem u gelin waxa jiray qaybo triangle-ka loo kala qaybin jiray marka geometry-ga la joogo triangle-ka waa la kala qaybiyaa iyo trigonometry-ga labadaba ama geometry-ga baan idhaahdo maadaama geometric shape yahay ilaa dhowr jeer baa la kala qaybiyaa triangle-ka mar waa la kala qaybiyaa according to its sides iyadoo loo eegayo waxa weeye dhinacyadiisa mar kale waa la kala qaybiyaa according to its angles iyadoo loo eegayo xaglihiisa mar kale waa la kala qaybiyaa according to iyadoo laga eegayo ma right angle triangle ba mise waa non right angle triangle waxyaabaha noocaas iyadoo laga eegayo waxa weeye waa la kala qaybiyaa dhammaan qaybaha kala duwan trigonometry-ga ay ku tacalluqayaan oo waxa way imanayaan dhamaantood haddaynu eegno marka qaybta koowaad sideska sida meesha way noogu xusan waxa loo kala qaybinayaa 3 qaybood saddexda qaybood ee loo kala qaybinayaa mid waxa la oranayaa waa isosceles triangle mid labaad waxa la oranayaa waa equilateral triangle ugu dambeynna waxa la oranayaa scalene triangle equilateral triangle-ku waa 3 xagal kaasoo laba dhinac isleeg yihiin maxaa isleeg laba dhinac baa isleeg hadday labada dhinac isleeg yihiin labadan xaglooda ay ku taagayeen way isleeg yihiin bay ka dhigan tahay equilateral triangle-ku isaguna waa triangle kaasoo 3 dhinacba isleeg yihiin haddii la yiraahdo 3 dhinacba way isleeg yihiin dadmeeni 3 angle-na way isleeg yihiin bay ka dhigan tahay way halka tan laba angle ay isleeg hayaan angle-ka kalena uu ka duwanaa oo lagu soo saaray wadarta labadan oo laga soo sharay 180 ugu dambaynkani waxa weeye isaguna waa 3 xagal kaasoo loo yaqaan scalene triangle sawirkiisu uu ka yar duwanaanaya kuwii hore right angle triangle-na ma noqonayo waa iska qaabkan oo kala scalene triangle-ku uu ka yar duwan yahay fadlan kuwii hore marka sidii kuwii hore ha u sawirin isaga ka yar duwan intaad ka yar duwi karto inuu right angle triangle ka noqdo saddexda qaybood sideen meesha ku xusnay hadaynu inta ku dhaafno oo ina caawin doona markaynu ka shaqeynayno ciwaano badan oo wax weeye trigonometry-ga ina soo gelaya hadaynu u galno Pythagoras theorem waxaynu hore u soo sheegnay oo form 1 oo kale aynu ku soo aragnay ciwaan la oran jiray Pythagoras theorem Pythagoras theorem-ku waa aragtiinka Pythagoras waa ninka magaciisa theorem-na waa aragtidii Pythagoras theorem-ku waxay ku tacalluqdaa oo qusaysaa ama concerns Pythagoras theorem concerns waxay qusaysaa maxay waxa loo yaqaano relationship between the 3 sides of the triangle hadaynu isna 3 xagal sidan oo kale u soo warano right angle triangle mastarad baan ugu yar fiicnay laakiin waxba ugama baahnin sidaa baynu nidhaa inta badan waxaa la yidhahdaa si triangle-ka saxankiisu aanu kaaga yar xumaanin waxaa laga soo qaadaa waxaana waa bir laydhoo meel taagnayd tusaale ahaan inaan qolada heykada u shaqeeya ka soo qaad birtii laydha halkaas ka taagnayd buu soo qaaday silaankiyo wuu ku tiiriyey and this is the earth kana waa dhulkii halka waxa kaaga sameysmaya right angle triangle waxay tan ku fududeynaysaa inaad 3 dhinac isleekaysan sawirkoodii haddaba triangle ka yar baynu halka ku haysanaa triangle-kan waa right angle triangle
markiiba waxaynu naqaanaa khalad baa jira halkan saddexda dhinaca triangle-ka waxaynu u kala naqaanaa hypotenuse opposite iyo adjacent hypotenuse waxaa la yidhaahdaa waa dhinaca ugu dheer saddex xagalka haddaynu maanta saa u eegno keebaa hypotenuse noqonay kan baa hypotenuse mise kan baa hypotenuse haddii sawirka aad saa u eegto waxaa laga labada dhinacay isku dhowdhow yihiinba waa dhinaca ugu dheer laakiin wax kalaa jiro oo lagu garan karo ma aha macnaheedu dhinaca ugu dheer oo keliya waaba ka xumaaday ma ardaygu sawirkiiba ka xumaado sidan u noqday triangle triangle-kan halkan ka samaystay ba sawirkiiba ka xumaaday labada dhinac isla yihiin sadarkiisu marka ma aha keliya concept-ka lagu garan karo Pythagoras theorem-ka marka la joogo triangle triangle la joogo concept-ka keliya lagu garan karo hypotenuse-ku ma aha inuu yahay ka ugu dheer ee concept kala jiro lagu garan karo oo ah inuu yahay side-ka mar walba ka soo horjeeda right angle-ka right angle-ka side-ka ka soo horjeeda mar walba that is called hypotenuse kaas maxaa la yiraahdaa hypotenuse baa la yiraahdaa labadan side ee kale magacyadoodu waxay ku xidhan yihiin marba xaaladda la joogo haddii waxa weeye triangle-ka caadiga aynu iska haysano kuwan waxaa la odhanayaa waa legs this is leg and this is leg labaduna waa maxay waa legs baa la odhanayaa laakiin haddii meeshii angle yimaado sidan oo kale meeshii angle baa yimi kan waa hypotenuse-keena sida caadiga ahayd meeshii angle baa yimi hadduu meeshii angle yimaado ka soo horjeeda la odhanayaa angle-ka ka soo horjeeda la odhanayaa waa opposite of what waa horjeeda maxay muxuu ka soo horjeedaa wuxuu ka soo horjeedaa angle-kii dhinacanna waxaa la odhanayaa waa adjacent deris adjacent of what you adjacent la yahay xagashiibu adjacent la yahay ka dhiganta saxiix marka meel kale fahmay loo haweeye hypotenuse-ku mar walba waa ka soo horjeeda dhinaca xagasha mar walba ka soo horjeeda labada kale marka hore waa iska legisun haddii angle meesha yimaado mar walba ka soo horjeeda opposite mar walba ka ku xiga adjacent hadaynu mid saddexaad mid sameeyno sidan oo kale angle-kii baan meesha ka rarayba angle-kii waxaan sameeynaba meesha baynu ka rarnay haye right angle triangle-ka waa kan angle-ka baan rarayba xagga sangeeyay kan wali waa hypotenuse maadaama ka soo horjeedo xagasha qumanayd angle-kii baan xagga geeyay this is opposite kan baa maanta maxay noqonaya opposite this is adjacent kan baa maanta maxay noqonaya adjacent-kii waa adiga halkan aad degan tahay reerkan kugu xigaa waa adjacent-ka ka soo horjeedana waa opposite waad guurtay gurigi baa laga saaray ka soo horjeeda degtay adigu reerkii markii hore ka soo horjeedi jiray maanta wuu kugu xigaya reerkii markii hore kugu xigi jirayna maanta wuu ka soo horjeedaya marka opposite adjacent waa si yar dabageli doontaan haddii wax weeye ayadaan weli fahmin Pythagoras theorem-ku waxay sheegaysaa haddaba saddexdan side haddaynu kan A u bixino kana B u bixino kana C u bixino qasab maaha waxaad arki doontaa iyadoo waxay buugta qaar ay kan A u isticmaalayaanba kan waxay B isaga isticmaalayaanba kana C isaga isticmaalayaan qasab maaha ayay kugu safe gracemin ka A baa loo yaqaan kana B baa loo yaqaan kana C bay kaaga dhigin fadlan laakiin saddexda side magacyadoodu isagala kala baxaynaa hadaynu kan u bixino A haddaba kana u bixino waxa weeye B inagu u bixino kana C u bixino Pythagoras theorem-ka ama aragtiinka Pythagoras waxay sheegaysaa isugeynta labada dhinac ee yaryar aan si kala u dhigo isugeynta labadan dhinac waxay la eg tahay isugeynta labadan dhinac oo mid walba la laba jibaaray waxay la eg tahay dherarka hawee dheero la laba jibaaray haddaan soo dhaweeyo labada dhinac ee gaagaaban oo mid walba la laba jibaaray oo la isku daray waxay la eg tahay dhinaca ugu dheer oo la laba jibaaray macnaha wadarta labadan dhinac oo mid walba la laba jibaaray waxay la eg tahay dhinaca kale oo la laba jibaaray shakaalka oo la laba jibaaray laakiin mid xasuusnoo fadlan waay hal mid baad xasuusnaanaysaa laakiin fadlan halka mid aad xasuusnaanaysaa waxa weeye waxaa kala duwan in la yidhaahdo wadarta labada tiro oo la isu geeyey oo la laba jibaaray iyo in la yidhaahdo wadarta labadan tiro oo mid oo la laba jibaaray oo la isu geeyey labada tiro labada hadal way kala duwan macnaha wadarta labada tiro oo la laba jibaaray macnaha labada tiro la isu geeyey oo la laba jibaaray saas ay noqonaysaa laakiin labada tiro oo mid walba la laba jibaaray oo la isu geeyeyna saas ay noqonaysaa waa kala answer imka hadaynu tan furfurno tani waa y squared plus 2ab plus b squared therefore waxa arkaysaa meesha number dheeraad ku jiro marka labada hadal kale ilaali fadlan hadii tusaale ahaan aad tiraahdo yara fahansiyo tusaale cid yara fahansiyo kale hadal ahaan iyo iskaga ka qaldan fadlan labada hadal intaasi waa inta
bal waxaan isku dayaynaa inaan proof garayno haddaba qaacidadan yar ee Pythagoras theorem-ka inagoo isticmaalayna similar triangles-keeni waan iska masaxnaa intaa yar si loo proof gareeyo Pythagoras theorem habab aad u fara badan baa la isticmaalaa fadlan tusaale ahaan geometrically waa loo proof gareyn karaa trigonometrically-na waa loo proof gareyn karaa haddii ama geometrically ha loo proof gareeyo ama trigonometrically ha loo proof gareeyo markaad sii baadhbaadho waxaad arkaysaa iyadoo lagu odhanayo 400 oo hab wax ka badan ayaa Pythagoras theorem lagu proof gareyn karaa kolley anigu intaan arkay 45 hab meelaha baan malaynaya in ahaayeen mise 43 meelaha laakiin waxaynu maadaama in trigonometry joogno bal tayara ugu dhoweey waxooyee trigonometry-ga lagu trigonometrically loo proof gareyn karayno isku daynaa inaan ku proof gareyno inagoo isticmaalayna waxooyee triangle-keenan caadiga haddaynu iska sawirno xaba triangle triangle-ku hadduu inaga yar xumaado oo kale rectangle triangle baynu uga jeednaa un rectangle triangle-keena yar yaan halkaa ku sawiranay inagoo xusnay saddexda side maxaa lagu kala garanaya magacyada loo kala bixinayo hypotenuse-ku fadlan mar walba waa ka soo horjeeda waxaweye xagasha quman ha isku halaynin oo keliya hada odhanaysa waa dhinaca ugu dheer waayo saddexaadku kaa xumaan karaaba si islaakaan karaan laba dhinac waayo si aynu u proof garayno haddaba haddaynu halkaa a u bixinno halkaana b u bixinno halkaana c u bixinno waxaynu samayn karnaa inaynu saddex xagalkii halkan ka kala qaybsanno in order to get two similar triangles halkaa rectangle triangle baa inooga samaysmay halkaana rectangle triangle ayaa inooga samaysmay markaynu halkaa ka kala qaybinay saddex xagalkeennii meeshii haddaan halkaa markii d u bixinno point d u bixinno meesha imika saddex triangle baynu haysanaa oo isku mid ah saddex triangle aynu haysanaa maxay kala yihiin waxaynu haysanaa triangle la yiraahdo triangle calaamadda triangle loo qaataa triangle haye triangle la yiraahdo ABC oo ah triangle-ka guud ABC triangle-ka guud waxaynu haysanaa another triangle la yiraahdo triangle Allahumma salli ala Muhammad ADB waxaynu haysanaa another triangle ama triangle saddexaad baynu haysanaa oo ah BDC triangle-ka triangle BDC saddex xagalkaas aynu haysanaa sax haddaba saddexdeena saddex xagal midi waa kaa weyne inoo sawiran haddaynu isku dayno labada kalena inaynu sawirno ka yar sidan oo kale buu noqonaya haddaynu kaa soo fooraro aynu sawirno sidan oo kale ayuu inoo noqoni waa rectangle triangle-ka yar ee soo foorara ee halkaasi A-da tahay halkaasina D-da tahay halkaasina B-da tahay triangle-ka kalena sidan buu noqoni isaguna waa rectangle triangle-ka xagga u jeeda ee halkaasi D-da tahay halkaasina B-da tahay halkaasina C-da tahay dadmini saddex triangle baynu meesha haysanaa triangle-keena ADB is similar triangle to triangle ABC triangle ABC bay isleegiin similar yihiin hay triangle BDC na waxay similar yihiin ABC labada triangle imka inoo samaysmayba kaasay similar yihiin haddaba si aynu haweeye intaasba isula toogano aynu xaggan iska masaxno dabeetana aynu haweeye proof garayno bal Pythagoras theorem-ka waxaynu odhan karnaa bal haddaba yar fiirso waxaan proof garaynaynaa waxa weeye in side-ka ugu dheer ee A squared AB AC oo ah side-ka ugu dheer oo la laba jibaaray inuu leeyahay AB oo la laba jibaaray oo lagu daray BC oo la laba jibaaray waxaan proof garaynaynaa waxa weeye waa aragtida noocaas haddaba si aynu proof garayno laba qodob iyo xasuusnow qodobka koobaad xasuusnaanaysa waxa weeye similarity-gi iyo inay triangle-ladani similar yihiin markaan idhaahdo similarity waxaan u jeedaa qodobka labaad xasuusnaanaysa waxa weeye maadaama waxaan triangle similar yihiin yaa isla ekaanaya yaa la isbarbar dhigaya ratio-da kuwa dhinacyadeeba la isticmaalaya tusaale ahaan side-ka AB oo ah hypotenuse-ki waxaa ratio ahaan loo barbar dhigayaa side-ka ah
AB haddaad triangle kan joogto sideka BC oo hypotenuse-kii ah sideka AC oo hypotenuse-kii ah waa la barbar dhigaya loo haweeyaan saami ahaan loo barbar dhigaya sidekan yara hoose ee uu ku fadhiya triangle BD kan baa la barbar dhigaya BA sidekan kale ee triangle-ka ka sii jeeda waxa loo DC la yiraahdo waxa la barbar dhigaya BC kan asaasi lamada kan iyo kana la isbarbar dhigaya kan iyo kana la isbarbar dhigaya kan iyo kana la isbarbar dhigaya aan ku bilaabo tusaalahan waxaan idhi triangle ADB tusaalahan triangle-kaasi wuxuu similar triangle leeyahay calaamada saanta badan la iska isticmaalaa similar triangle wuxuu similar triangle leeyahay triangle ABC صح haddaba waxaan leeyahay sideka AD sideka AD keebaa la barbar dhigay ka la midka ah sideka AD waxaan barbar dhigayaa sideka kale ee la midka ah waxaan leeyahay side AD over side BA ama AB side AD over side AB sidoo kale side AD over side AB is equal to wuxuu leeyahay side AB over side AC side AB over side AC this is for similarity waxaan isticmaalnay waa maxay waa similarity chapter-kan idin soo dirayna iyagu proof grayson way ku yaalaan hooyo marba wad ku yar dubad ugu yar noqonaysa marba yara akhri marba qayb hooyo dub ugu yar noqon way cross multiplication isku dhufo symbol labadan isku dhufo hal midna xasuusnow markaad AB ku dhufatay AB that means waa 2 lagu dhuftay 2 oo kale laba number oo isku mid ah 2 lagu dhuftay 2 waxaan ku soo urursan karnaa 2 laba jibaaray waxaan ku soo urursan karnaa 2 laba jibaaray therefore lagu dhuftay A waxaad kaga soo ururin kartaa A laba jibaaray AB oo lagu dhuftay AB na si lamida waxaad ku soo ururin kartaa AB oo laba jibaaray labada haddii isku dhufano waa AB oo laba jibaaray waxay inoola mid tahay labadana isku dhufo waa AD times AC that is equation 1 taa maxaan u bixinaa equation 1 hey equation 2 aynu sameysana iyadana inagoo oranayna also sidoo kale si equation 2 sameysano triangle BDC triangle BDC na is a similar triangle wuxuu la mid yahay triangle-ka ABC صح dootana sides-ka sidii soo barbar dhigaynaa yani waxa arkaysa inaynu markii hore isbarbar dhignay AD iyo AB aynu xaggan maanta iska isticmaalno dhinacan aynu iska isticmaalno aynu iska isticmaalno dhinacan kan maadaama aynu labada isticmaalnay triangle-kan imika joognaa aynu labadan iska isticmaalno marka DC over BC aynu iska isticmaalno صح aynu idhaahno side DC over side BC ka weyn side BC wuxuu inoo la eg yahay labada hypotenuse oo la isbarbar dhigay mar walba ka sareynaya waa kii ka hore sareeyay hypotenuse kana waa maxay waa BC waa side BC over side AC isaguna waa for similarity waxaan isticmaalnay waa maxay waa similarity cross multiplication labada isku dhufo waa BC square sida ay ku noqotay waniga xagga hore kugu tusaleeyay labadan dambe isku dhufo waa AC times AD that is equation 2 iyaduna waa maxay waa equation 2 haddaba by adding anigoo isku daraya haddaba labada equation muhiimaddu intaas ah maxay intaad si yar barbar dhigtid saddex triangle aad kala garatid meesha saddex triangle ku jiraan intaas way muhiimad ahayd marka markay isu geeyndee cidna weydiin maysid isu geynta habar wala way garanaysaa baan malayn marka waxay isu geyn cidna inaad weydiinayn ayaa filaya isu geyntu maxay noqonaysaa waxaan leenahay adding equation 1 by equation 2 labadan equation baan isku darayna waxaan odhanaynaa equation hore waa maxay equation hore waa AB square waxay la mid tahay AD times AC plus oo lagu daray
equation kan hoose oo ah BC waxay la mid tahay AC times AD AD maamula halkaas waxa weeye waa taa hore waa AD times AC ta horena waa AB square waa inta la mid ah ta dambana waa BC square waxay la mid tahay AC AC times DC AC times DC sorry halkaas waa DC hoy halkaas waa maxay waa DC halkaas waa DC way ha DC halkaas ku fahmay DC AD times DC halkaas waa maxay waa D AC times DC صح sugi hadaba sugi dabcan markaynu sugeynayno de waa laba tiro kala duwan marka isuma tagayaan calaamadii ma ka dhaxaynayso waa AB la laba jibaaray plus BC la laba jibaaray oo la mid ah AD times AC plus iyadana calaamadii ma ka dhaxayni AC times DC hadaba intan waa sideedii waa AB square plus halkana waa sideedii BC square taa ka wada factor garay wixii ka wada baxa AC halka waxa ku haray AD plus halkan waxa ku haray DC hal qodob ba muhiim ah wada xasuusnaanaysa hadaan haysto line ka leeyahay L iyo M labada line halku ka waa segment halku ka bilaabmay leeyahay line halka ka bilaabmay leeyahay L halku ku dhamaanay leeyahay M tan halka ka kala qaybsano meesha ka kala qaybina qasab maaha ma bartamaha ma koonaha ama koonahana meel baynu ka kala qaybina halkaas aanu ka kala qaybinaba xaraf baanu bixiyay suppose waxaanu bixiyay ka soo qaad n baa waxaanu bixiyay n baanu bixiyay salaan waxaan oranayaa hadaba line kaygaas LM wuxuu ka kooban yahay isku darka LN oo lagu daray waxweeye NM si lamida inta side keeni aynu haysanay triangle keeni aynu haysanay noocan aha aynu iska masaxnay noocan aha triangle keeni noocan aha aynu haysanay halkaas A ahayd halkaasina B ahayd halkaasina C ahayd aynu halka ka kala qaybinay hore aynu xagga hore ku haynay halka weynagii dhow baxnay line-ka AC wuxuu ka kooban yahay AD oo lagu daray DC therefore AD oo lagu daray DC waxayna siinaysaa AC waxaan uga socdaa halka AD plus DC inoo taala maxaynu ku bedeli karnaa AC aqliga hooy AB la laba jibaaray BC la laba jibaaray waxay la mid tahay AC la laba jibaaray xagan ka keenay laba jibaarka talaabada waan iskaga booday halka AD plus DC taalun baan maxay ku bedelayeen AC iyo AC baan isku dhuftay waa laba number oo isku mid ah waa AC la laba jibaaray therefore halka waxay nooga samaysatay qaacidada ah in waxa weeye dhinaca ugu dheer oo la laba jibaaray AC uu la eg yahay isku darka labada dhinac ee kale oo mid walba la laba jibaaray that is called Pythagoras theorem waana inta ay inoo sheegaysay Pythagoras theorem halkaasaynu iskaga soo afmeerina xiisadeena koowaad xiisadeena waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho